بسم الله الرحمن الرحيم كسو دو جانالك وحقارد فضلا هداد نوع عصوب تهاي جانالك سبسكرايب له caadooyinka sanad kastoo cusub lagu soo dhaweeyo waa kuwa yaab leh. Dalka Denmark marka sanadka cusub soo dhawaado waxay diyaariyaan saxamo iyo baaqulyaal waqti hor la isticmaali jiray ama qaaraami ah oo ka samaysan dhoobo. Marka ay bisha tahay maalinta ay bisha tahay 3 Diseembar, saxamadaasi iyo weelashaasi waxay ku jabiyaan guryahooda hortiisa iyagoo waliba ay kala soo qayb galayaan saaxiibadooda iyo qaraabadooda xaflad camal. ujeedada xafladan burburinta saxamada iyo baaquliyaasha ayaa ah inay aaminsan yihiin inay ka xijaabayso kana celinayso sharka iyo balaayada sanadka cusub iyo in nasiib xumada ay raacdo sanadkaasi tagay oo la iska fogeynaa iyo soo dhaweynta rajo wanaaga sanadka cusub. dalka Argentina ayaa isna u xusa si cajiib ah bilowga sanadka cusub ee miilaadiga ah. bulshada Argentina ayaa dhamaadka sanadka cusub markay saacadu gaarto 12 habeenimo ama saqda dhexe ama 6 saac habeenimo u taqaan waxay xirtaan dhar guduud ah. waxaana waajib ah in qof kasta halkuu doonayo ka yimaado ama wadanka safar ha ku ahaado ama isugu dhalan inuu xirto dharkaasi oo guduudka ah waliba isagoo horgelinaya lugtiisa midig. arrimahaas waxay dhacayaan markay saacadu gaarto 12 habeenimo ama 6 saac habeenimo. cagaha ayaa xoog u shaqeynaya markuu bilaabo sanadka cusub, dadka magaalada dhan ay soo baxeen dhulka xitaa markaas. dalka Brazil ayaa isna xafladda sanadka cusub maalintiisa u horeeya dadka dhamaantood waxay soo xirtaan dhar cadcad. ujeedada ay ka leeyihiin ayaa ah inay ku fogeeyaan ruuxaanta sharka badan degmadoodii ka fogeeyaan ruuxaanta. waxaana ay aaminsan yihiin inay ka durkaan ilaa 7 badood meesha dharka cad lagu xirtay sanadkaasi. waxaa kaloo ay aaminsan yihiin inay xirashada dharka cadi u soo jiidayso nasiib wanaagsan sanadkaasi. alxamdulillah waa muslim naga dhigay. intaas ayaa maanta idin soo bandhigay. share, like, subscribe ni aliloobin. aad iyo aad u mahadsantihiin.